gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha guurtida Soomaaliland Saciid Jaamac ayaa aqalka golaha guurtida Soomaaliland ku qaabilay xildhibaano ka socda dalka Djibouti oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa Soomaaliland kulankan oo saxaafadu dibadjoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday wax warbaahinta si wada jir u lahaa gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha guurtida Soomaaliland Saciid Jaamac Ali iyo gudoomiyaha arrimaha dibadda ee golaha baarlamaanka dalka Djibouti Cabdiraxmaan Cawaale iyo waliba Saciid Salaase oo ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti waxa garanaysan oo halkan aan taaganahay waqti ka socda baarlamaanka Djibouti oo u yimi shirweynihii ka socday halkan ka socday annaga maanta wana soo booqdeen waxaan ka wada hadlaynaa waxay ahayd baarlamaan ahaan maadaama ay yihiin baarlamaanka Djibouti annaguna halkan hal joogno labadii gole maanta waa wada xiran yihiin waxaan ka wada hadlaynay sidii aan u xoojin lahayn xidhiidhka labada baarlamaanka Soomaaliland oo ka kooban golaha guurtida iyo golaha wakiilada iyo baarlamaanka Djibouti waa maasantihiin waxaan joognaa aan soo siyaarinay waa baarlamaanka Soomaaliland sidoo sheegay gudoomiyuhu aad iyo faraxsanahay inaan saddex xildhibaan oo reer Djibouti oo saddex xusbi ka kala socda halkan aan imanno oo ka dhageysano gudoomiyaha arrimaha farabadan soo sheegay marka soo gudoomiyuhu sheegay anaku golaha guurtida malihin laakiin sida ay wada shaqeeyaan golaha guurtida iyo la fadhiga inay tahay nidaamka Soomaaliland ayuu noo sheegay aad ugu faraxsanahay dhankii sanadan jiraha Soomaaliland u fadhiya dalka Djibouti Cabdifataax Saciid Axmed ayaa isaguna halkaasi ka hadlay kulan gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha guurtida Saciid halkan waxa ka socda saddex xildhibaan oo ka socda Jamhuuriyadda Djibouti oo saddex xisbi ka kooban waana markii ugu horeysay ay runtii yimaadaan saddex xildhibaan oo ka socda Jamhuuriyadda Djibouti oo official ku yimid casuumad rasmi ah oo xukuumadda Soomaaliland u fidisay runtii aad baan ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha baarlamaanka Djibouti iyo xildhibaanada Djibouti iyo xildhibaanada la socda runtii sida oo aqbaleen inay ka soo qaybgalaan shirkii lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliland waxa uu qabsaday 27 sano arrimaha dibadda iyo waxa hortaagan carqaladaha runtii laba cisho shirkaasna si fiican buu noogu dhacay saad ka war haysaan xiriirka maanta meel aad u wanaagsan Djibouti Soomaaliland maraya waxaan jecelahay xiriirka bilaabmay iyaguna waa noo iman guurtida xildhibaanaha ku dhawaan noogu iman doona Djibouti hadii la heeraa iyaguna casuumad ku iman doona isla weegan wasiirada qolka ka tirsan oo xukuumadeena ayaa iman doona xagga iyagana casuumadaha haysta madoona inaan ka wardabo runtii xiriirku maanta maalin Cabdifataax Ismaan telefishinka Soomaali Cable Hargeysa.